waxaa si rasmiya xadhigga looga jaray waddooyin laami ah oo ay xukuumaddu ka hirgelisay magaalada guday kuwaasi oo ay ku baxday lacag ka badan 371 milyan oo bir. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo wasiir ku-xigeenka xafiiska jidadka deegaanka mudane Cabdikariin Cabdiraxmaan ayaa si wada jira u daafuray mashruucani. waddooyinkani oo dhererkoodu yahay 3.3 kilomitir ayuu ballacooduna dhan yahay 14 mitir. waddooyinkan laamida ah ayaa kala ah waddada Elele, waddada Wacaysaad, waddada Tawakal, waddada Waabin iyo jidka Jaamaca. waddooyinkani ayaana door weyn ka qaadan doona horumarka iyo bilicda caasimadda labaad ee deegaanka Soomaalida ee magaalada Guday. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay munaasabadda xadhig jarka ayaa waxa uu yiri: runtii maanta oo kale farxad badan baan dareemaynaa maadaama midhahii waxqabadka xukuumadda la arko. laamiyada magaalada Guday in badan maadaama laga sheekeeyay maanta inaan ku dheeraado ma rabo, kaliya inaan sheego inta hadda la dhisay in u dhiganta oo la mid ah oo aan filayo in qaarkoodna ay socdaan, qaarna hadda qorshaha ku jiraan inay soo socdaan dadka ugu bashaareeyo man rabaa, taasoo kor u qaadi doonta heer daboolka laamida ee magaalada oo ah caasimadii labaad ee deegaanka. dhanka waxqabadka xukuumaddu 5 sano ka hor wixii ay ballan qaaday waxaan oran karnaa 100% way ka soo baxday, laakiin baahiyaha jira marka la eego kuma filla rabitaanka shacabku sii kordhiyo mar walba. sidaa daraadeed Guday waxay u qalantaa in laga fuliyo barnaamijkii koridorka ee Jijigoo kale, guriyeyn in laga sameeyo, dhanka waxbarashada ardaydu way soo badanayaan in la taageero. hawlahaas oo dhan waa hawlo dhiman oo magaaladan u baahan tahay weey. garoonka kubadda cagtu insha Allah dhaqso inuu dhamaadaan rajaynaynaa, meel ka dhiman buu ahaa. marka xukuumaddu shanta kalena haddii la yiraahdo xisbigu wuxuu ballan qaadayaa inta la qabtay laban laabkeed in la qabto inay ka go'an tahay. arrinta waxaa sahlaya qaab dhismeedka magaaladu hadda ay yeelanayso oo ah magaaladan maadaama hadda mansab ahaan laga dhigay magaalo u dhiganta ama la miisaan ama la heer ah magaalada caasimadda Jijiga oo labada magaalo ee Rijapolis xarumaha region oo kale loo qaatay labadooda ay yihiin. waxay heli doontaa faa'iidooyin fara badan iyo maalgashi dheeraada maadaama miisaanka iyo heerka sare hadda loo go'aamiyay. waxaa kaloo xal heli doona iska qabsiga maamulka magaalada iyo degmada iyada oo xayndaabka magaaladu intuu leeyahay la cayimi doono ugu yaraan 15 kilomitir oo noqon doona haddii la yiraahdo. waxaa xaqiiqo ah haddii ay dhammaan lahaayeen jidka Hargeysa iyo jidka Qalaaf oo ilaa hadda ferfer inuu gaadho ay ahayd in ganacsiga iyo kobaca magaaladu sidoo uu ka sii fiicnaan lahaa. kuwaana xoogga la saari doona insha Allah haddii la yiraahdo. waana lagu baraarusan yahay dawladda federaal ahaana jidadka laamiga ee dhaadheer jiitanka ka jira waa la isla garanayaa, waa la soo qaaday. waxaan filayaa shaqooyinka ugu horeeya xukuumadda federaalku ay qabanayso inay noqon doonaan jidadka jiitamay la dhameystiro. annaga xukuumad ahaana waxa xoogga la saari doonaa laamiyada in la sii xoojiyo. marna magaaladu way sii fadaysaa, waa in la daba wado wax istaagayo oo la oranayo intaas ku filan ma aha. waxa kale oo xoogga la saari doonaa guriyeynta, iyadoo oo guriyeyntu ay tahay heer dal xisbiga barwaaqo waxyaalaha hadda uu go'aansaday in xoogga la saaro oo qorshu yahay 2 milyan oo guri wax ka badan in hal sano lagu dhiso. 2 milyan ee guri waxaan filayaa qorshaha hadda yaala inuu yahay ilaa 3200 oo guri in deegaanka Soomaalida laga dhiso, kuwaas oo aan filayaa intooda badan in labada caasimadood Jijig iyo Guday ay u badnaan doonaan insha Allah haddii la yiraahdo. marka wax fara badan baa soo socda. waxa soo socda si uu inoogu hirgalo nabadgelyada iyo midnimada shacabku waa asaasi. wax kasta oo dawladdu ay qabatay waxa ka fara badan waxa ay nabadgelyadu qabatay. haddaan nabadgelyo jirin ganacsigu ma kobcayo, shacabku maalgashi ma keenayaan. sidaa daraadeed in tabasho kasta oo jirta, baahi kasta oo jirta aan ku mintidno nabadgelyo ayaa loo baahan yahay. waxaad la socotaan warshado waaweyn oo mashaariic in la dhagax dhigay oo dawladdu ay rabto in la bilaabo, tii bacriminta ka mid ah. waxaa la yarar oo siyaasado la dhex gelinaya jira, arrimaha inaan ka feejignaada loo baahan yahay. guux baa jira, kana jira, kaasaa jira, arrimo waxyaalo noocaas ah waa waxa ay wadaan dadyow diidan mashruuca in la gaadho. marka waxyaalo yarar oo la xallin karaba oo tabashooyin oo qaab dhismeedyo in loo sameeyo iyo project office u baahan ayaa la sii hordhigaya hadda durba. marka arrimaha noocaasana mashruucaasi mashruuc halgan fara badan ku yimid halkan weeye. waa mashruuc magaaladan wajigeeda 100 jeer bedeli doona.
kumanaan guri in la dhiso jidadkan waaweyn magaalada soo galaya in la dhiso shaqo abuur ballaaran keeni doona marka hadda waxba ma bilaaban iyadoo waxba bilaabin marka in la dhex boodo oo dadka muxuu la dhex galo kullay faham darrana way noqon kartaa akhris siyaasadeedna uu noqon karaa wax kale in ku dhex jiraan marka arrimahan ha laga fajignaado xukuumaddu waxay diyaar u tahay inay dadka uga faa'iideyso mashaariicda ta federaalka iyo ta deegaankuba arrimahan ha la socdo insha Allah hadii la yiraahdo doorashadii ku jirnaa xilli fiican oo barwaaqo ilaahay doorashada ay nagu guuleeyo iyadoo nabadgelyo ay noo dhacdo xisbiga barwaaqo 7 sano u dambeysay wuxuu ka qabtay deegaanka Soomaalidu wax qarsoon ma aha meel walba oo la tago degmo walba gobol kasta oo la tago wax qarsoon ma aha waxaan aaminsanahay haddii 5 sano oo kale sida hadda wax loo qabanayay waliba iyadoo duruufaha dhaqaaluhu inay hagaagaan aan filayno hadda ka sii fiicnaadaan sidii hadda yihiin iyo awoodda dawladda dakhli ururuntu ay sida ka sii fiicnaato waxaan aaminsanahay in maaragtay isbedel degdeg oo ballaaran oo dalkan kula jaan qaadno aan hirgelin karno dhamaantiin intii ka qayb qaadatay hawshaas xafiisyadii hawlwadeenadii shacabkii muxuu ahaa qaybta ka ahaa dhammaantood u mahadnaqaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu geestiisa wasiir ku-xigeenka xafiiska jidadka deegaanka injineer cabdikariin cabdiraxmaan ayaa munaasabadani ka hadlay isla magaaladan goday isbedelka bilowgiisii mudan madaxweyne xaggan aan isku hayaadhay waxaad noo sheegaysay directionka xukuumaddeena directionada waxaa ka mid ahaa horumarinta magaalooyinka in magaalooyinkeennu weji u qalma yeeshaan mudanayaal iyo marwooyin waxaad la socotaan laga soo bilaabo wakhtigaas xukuumadda deegaankeennu waxay miisaaniyadda ugu badan u qabatay horumarinta magaalooyinka magaaladeennan goday aan maanta u joogno waxaa laga fuliyey waddooyin aad u fara badan oo laga qorsheeyey miisaaniyadda heer deegaan iyo magaaladaba waxaan maanta marka xaggan u fadhinaa xadhika jarka 5 waddo oo isku dar noqonaya 3.3 kilomitir xagga waxaa ka cad in xoogga la saaray horumarinta magaalooyinka mashruucani oo ay hirgelisay xukuumadda deegaanku ayaa waxaa dhaqaalihiisa laga bixiyey khasnadda xafiiska jidadka dowladda deegaanka Soomaalida dhismaha waxaa fulisay shirkadda China Railway Safety Group halka Big Vision Engineering Consultant Firm ay ka mas'uul ahayd naqshadeynta iyo kormeerka heshiiska mashruucani ayaa la saxiixay bishii January ee sanadkii 2023 isla bishaasi ayaana la bilaabay dhismaha qiimaha guud ee ku baxay mashruuca ayaana gaaraya 371 milyan 174 kun oo bir